بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتم وعنا وناكسن داود اللمادين بالكن وتلفزيون كعالمي هون كيبل تي في حرونتي سمجال هرجيسة داود الهانتين به كسر دواده ورئيس الله يلنا ماريها وكالة بيها هرجيسة إبراهيم سياد يونس وعاو مرتين وجوه برنامج كوبنا يسوى دياريا حفيز كحليل كمشاريع ذا صندوق هرمرينتا سومالان SDF وزارة قرشين تقرن كسومالان وحنا برنامج كلام كجهد لدونا xaaladaha kala duwan ee biyo la'aanta ee Soomaaliland iyo mashaariic maalmihii ugu dambeeyay biyaha lagu balaadhinayo caasimadda Hargeysa oo la filayo in dhawaan laga hirgeliyo guud ahaanba caasimadda Hargeysa waxa mashruucan biyo gelinta iska kaashanaya midowga Yurub iyo sanduuqa horumarinta ee Soomaaliland ee SDF waxaana bal su'aalaad kala duwan oo la xiriira mashruucaasi iyo biyo balaadhinta baan wax badan ka weydiin doonaa maarayaha wakaalada biyaha ee Hargeysa Ibrahim Siyaad Yoonis oo markale uga mahadnaqayo sidoo waqtigiisa qaaliga oo noogu horay in nagala qayb qaato barnaamijka balse marka hore intaan guda galin su'aalahaas aan weydiinayo maarayaha bal marka hore aynu wada daawano filim yar oo kooban oo bal ka turjumaya ama se faahfaahin dheeraad ah ka bixinaya mashruucan biyo balaadhinta ee Hargeysa oo kaashanaysa hay'adda UN Habitat waxay fulinaysaa mashruuc lagu balaadhinayo biyaha caasimadda Hargeysa kaas oo si wada jira ay u maalgelinayaan midowga Yurub iyo sanduuqa horumarinta Soomaaliland ee loo yaqaan SDF mashruucani waxa si rasmi ah u dhagax dhigay madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo 20 bishii September ee sanadkii 2015 hawsha biyo balaadhinta ayaa haatan si habsami ah u socota waxaana haatan dhamaaday qodida 4 ceel biyood oo cusub kuwaas oo laga qoday deegaanka hore hadlay dhanka kale waxa socota hawsha dhigida beeb cusub kuwaas oo biyaha u kala gudbinaya deegaanka ceelasha Geedeble ilaa barkada kaydka magaalada Hargeysa sidoo kale waxa ayna socota dhismaha saldhig biyood cusub oo laga dhisayo deegaanka Geedeble si kor loogu qaado gudbinta biyaha dhanka kale mashruucu waxa uu 7 kaalmood ka furaya deegaamada ay ku nool yihiin dadka danyarta ah ee loo yaqaan xaafadaha ayaxa ee magaalada Hargeysa dhamaadka mashruuca waxa dadweynaha caasimadda Hargeysa la rajaynayaa inay heli doonaan ilaa 20 milyan oo litir oo biyo nadiif ah halka markii hore ay heli jireen ilaa 9 milyan oo filimka yar kooban waxa uu ka turjumayay mashruucan biyo balaadhinta ee caasimadda Hargeysa waxaana barnaamijkan soo diyaariyay xafiiska xiriirka mashaariicda ee sanduuqa horumarinta ee Soomaaliland wasaaradda qorsheynta qaranka ee Soomaaliland marka hore waxaan ku soo dhaweynayaa maarayaha wakaalada biyaha Ibrahim Siyaad Yoonis bal marka hore inagu mahadnaqo si waqtigiisa qaaliga ugu horay inagu qayb qaato barnaamijkan maaraya ku soo dhawo Home Cable TV iyo barnaamijkan ba aad bad mahadsantihiin Home Cable TV iyo Guraase wadii mahadnaqaya aad baan adiga kaaga mahadnaqaynaa si waqtiga qaaliga aad noogu hortay mar kale dadweynaha daawanaya waxaan ayagana aan xasuusinayaa in khadka telefoonka si toos ah uga qayb qaadan karaan barnaamijkan intaan ku guda jirno su'aalaha wixii hayana ay weydiin karaan maarayaha wakaalada biyaha ee Hargeysa oo caawa Home Cable TV fursad u siiyay in qof kasta wixii su'aalaya halkaas uu ka weydiin karo iyo wixii ku saabsan mashruuca biyo balaadhinta ee madmadow badan ka jiro in caawa si toos halkan laga jawaabi doono maraya marka hore aan ku horeyno waa sidii xaaladda biyo la'aanta Hargeysa marka hore faahfaahin dheeraad aan ka bixino بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم mahadnaq marka hore waxaan mahadnaqayaa Home Cable TV iyo communication hubka ama xafiiska xiriirka mashaariicda ee wasaaradda qorsheynta qaranka ee SDF Hargeysa waa caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan la wada soconaa waa magaalooyinka ugu koritaanka badan ee Afrika 20 sano ama 20 sano qaranka ahayn waxay caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland Hargeysa ka taagnaa biyo la'aan taasoo u sababtahay systemka biyaha ee la dhisay oo u dhisay Chinese-ku phase-kiisa koowaad 7-aadkii phase-kii labaadna 8-aadkii waxa caasimadda waqtiga ku noolaa dad yar oo aad u kooban oo marka ugu badan lagu sheego 180 kun oo qof inay lagu talagalay iminka waxaynu wada ogsoonahay caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay noqotay magaalo madaxda caasimadda Jamhuuriyadda Somaliland dadkeedu aad bay u koreen 25 sano aad bay nabad bay noqotay dad fara badan baa soo degay diaspora ku soo noqday gobollada dhan baa laga yimid dad qiyaas ahaan lagu qiyaaso ilaa 1 milyan iyo 200 kun oo qof baa ku nool tira rasmi ah laga hayo laakiin qiyaas intaas lagu qiyaasaa systemkii biyaha ee Chinese ku dhisay 7-aadkii 8-aadkiina waa sidiisii reer Hargeysa wada maaraya qof khadka noogu jira hello
walaalba magacaa ku bilaabaya maaraya wakaalada biyaha ayaa hortaada fadhiya maxaa su-aalo qabta aad weydiinaysa adigoo iska gaabinaya muraayadda oo keliya telefoonka igala soconaya si fiican baan ku maqlaya si fiican baan ku maqlaya way su-aasha waa lagaga jawaabaya adigoo aada u raaliya بسم الله الرحمن الرحيم والله ناصر horta waad mahadsan tahay de waxaan jeclaan lahaa inaad hargeysa joogto waayo hargeysa qofka dhibaatada hargeysa jooga wuu og yahay biyo-la'aanta hargeysa ka taagan hadalkaygina waan ku daray hargeysa waa biyo-la'dahay dhowr iyo 20 sano way biyo-la'ayd mashaariicda biyaha marka la fulinayo way ka duwan yihiin mashaariicda kale mashaariicda ka shaqeynaa ma aha mashaariic hadala waa mashaariic rasmiga waad arkayso klibkeena waa daawanaysay oo mashruuc aad u ballaaran oo caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland ka socda muddo uu socday oo mashruuc farsamada waqti uu qaataa dowladdan Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo madaxweynaha ka yahay waxay waqti badan gelisay in dadweynaha caasimadda ku nool biyo ku filan oo nadiif ah oo la isku haleyn kara ay siiso taasna waa dhabadeedii baan ku taaganahay ilaahayna waxaan ku baryaynaa inuu guuleeyo mashaariicdaasna waa mashaariic aan arki doono insha Allah intifaaceeda qof kasta oo reer Hargeysa oo mustaqbalka dhow taaban doono waad mahadsantahay qof kale ku jira sida walaal adigoo magacaaga ku bilaabaya maxaa su-aalaad qabtaa maarayahaad weydiinaysaa magacayga waa Axmed Ali Xuseen waxaan ka soomayaa xabad jigeer aye waxaan jecelahay inaan weydiiyo maarayaha wakaalada biyaha goorma mashruucan soo gabagaboonaya waa su-aal fiican walaal Axmed waad mahadsan tahay mashruucu sidaan horeba u sheegay waa mashruuc farsamo deadline buu leeyahay mustaqbalka ilaahay waxaanu ka rajaynayaa mashruuca gabagabadiisa kulley waxaa iman karaan oo waxaan ognahay de ilaahay baa gacanta wax walba ku haya inagu qorshaynu samaysnay qorshaha ku talagalkiisu wuxuu yahay sanadkan inuu ku jirno bartankiisa 2016 dabayaaqadiisa ama bisha koobaad ee sanadka 2017 mashruucaas dhamaada phase-kiisa koobaad oo ah biyo soo saarka phase-ka labaad oo ah biyo qaybintana insha Allah isaguna degdeg dhawaan u bilaabmo waqtina ka dambeeya ka laakiin magaalada Hargeysa xilliga biyaha rasmiga soo gaarayaan waa 2016 dabayaaqadiisa bisha koobaad 2017 madaxiisa insha Allah ay xaaladda biyo-la'aanta ku jirnaa walaal Hargeysa sidaan hore u sheegnay way biyo-la'dahay waxaan ugu wacan biyo-la'aanta waxa kala batay koritaankeedii si u korisay iyadoo waxba infrastructure-ka wax laga bedelin anagu xafiiska waxaanu joognay intii xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo timid waxaanu nimid xafiiska ama wakaalada biyaha Hargeysa iyadoo habeeraatay wax mashaariic ka socon iyadoo wixii Chinese-ku inuu uga tagay la dul fadhiyo waxaan tacab badan ilaa madaxweyne ilaa maaraya aan isku geynay in loo doono deeqo oo inagu inagnahay awoodina dawladdeena intay talaab tahay mashaariicda biyuhuna way ka duwan yihiin mashaariicda kale waxay u baahan yihiin lacag aad u fara badan ilaahay wuxuu nagu guuleeyay inaan mashaariicdii wax badan ka inooga hiri galaan lacagtii koobaad waxaan ugu deeqay midowga Yurub oo lacag 15 milyan oo euro ah waxaana mar labaad ku xigtay sanduuqa horumarinta Soomaaliland ee SDF oo ilaa 10 milyan ee bad US dollars ama milyan dollar ku inoogu deeqay mashaariicdaas waqti dheer bay qaateen waxa fulinaysa hay'adda UN Habitat oo implementing ka waxaana consultancy ka ama mashruuca ilaalinaysa shirkad Jarmal ah oo Fitchner ah oo shirkadaha adduunka ugu waaweyn ee biyaha ka shaqeeya mashruucaas wuxuu leeyahay steering committee ama guddi hagta oo ka kooban 7 xubnood ka socda dawladda Soomaaliland iyo 3 deeq bixiye 3 bilood mar bay kulmaan waxay jeegarayaan maxaa socda maxaa qaldamay maxaa say tahay mustaqbalka maxaynu qabanaa hawshu say tahay say u socotaa waa mashruuc aad dhinacyada looga taagan yahay oo mar kasta la xisaabtankeeda aad la isku xisaabtamo ilaa madaxweyne wasiir qorsheyn wasiir biyo kulligeed deeq bixiyaashu waxa kale oo jira iyaguna shir aan bil kasta la galo oo laga wada hadlo mashruuc cusub socda oo la yiraahdo monthly progress meeting kaasna insha Allah isaguna si wanaagsan ugu socda marka mashruucaasi de marka la soo koobo componentskiisa ama qaybihii ka koobnaa badidoodu way dhamaadeen waxa kamid ah ceelashii la qoday way dhamaadeen si fiican bay u dhamaadeen dhismayaashii laga dubisay way dhamaadeen pipeline-kii horaad laga soo qaaday biyaha geedeble ka soo xidhay kala bar buu dhamaaday pipeline-kii geedeble ka soo baxay Hargeysa soo gaaray kala bar wax ka badan buu dhamaaday dhammaan qalabkii looga baahnaa mashruuca way wada yimaadeen mashiinadii way yimaadeen beebkii u yimid fittingkii u yimid marka mashruucu insha Allah waxaan ilaahay ka rajaynayaa dhameystirkiisa laakiin meel wanaagsan oo imika aad loogu farxo ay maraya ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu guuleeyo
dadweynaha caasimadda hargeysa ku nool waxaan ka codsanaynaa muddo dheer bay usoo samrayeen biyo la'aanta caasimadda hargeysa inay iminka ducadoon badiyaan in ilaahay mashruuca inuu hirgeliyo. khadkaa lagu jira. السلام عليكم. calaykum salaam walaalado magacaa ku bilaabaya maxaa su-aalaad weydiinaysaa maareeyaa. cabdirashiid ismaan cabdillahi walaal waxaan kasoo hadlayaa xaafadda calaamadaha. haye cabdirashiid. waxaan weydiinayaa maareeyaha dee muddo dheer waa la yaqaanaa koonfurta iyo bariga magaalada hargeysa biyo la-aan ayay aada loola ildaran yahay. haye. dee markaa inta biyihii hore ee maxaan ku rahdaayey markii hore waqooyiga magaalada kasoo gelayay inta biyo kale lagu xoojinayo mayna ka wanaagsaneyn in maalo kale loo helo si magaalada ay wuxuun u gaadhaan koonfurta iyo bariga oo kale iyo galbeedka oo kale saahan. waa su-aal fiican walaalo. walaal cabdirashiid waad mahadsan tahay. waan ognahay xaafadaad ka hadlayso calaamaduhu waa xaafadaha hargeysa biyo la-aanta farabadan ka taagan tahay bay ka mid tahay. hargeysina uma kala qaybino anagu maamul ahaan waqooyi iyo koonfur iyo galbeed iyo bariya hargeysi way biyo laadahay siday u dhan tahay. xaafado way helaan ka mid a hargeysa iyadoo yacnihii degmooyinka o dhan ay ka kooban tahay laakiin biyo la-aanta way ku kala fara badan tahay. systemkaas waxaynu ognahay hargeysa halkii juquraafi ahaan ku taala meesha quraatee aynu ognahay in biyo rasmiya laga heli karaa waa waqooyiga hargeysa. daraasado fara badan baa la sameeyey bari iyo galbeed iyo koonfur iyo meelo badan biyo kuma jiraan. biyahan sarooynu xidhanna mooye laakiin biyihii hoose underground waterkii kuma jiraan. geedeeble iyo horehaadlaya ilaa xumba weyne oo waqooyiga hargeysa ku wada xigay biyuhu inaga xigaan. insha allah systemkan laga caban jiray ee dad fara badan ka caban jiray biyo la-aanta ah ama equal sida biyaha loo qaybiyo cabasho badan ka jiri jirtay waa farsamo xagga farsamada ah ee maaha wax yacnihii maamul iyo wax siyaasad ku shuqul leh. mustaqbalka imika systemkan cusub aynu dejinay distribution systemka ama biyo qaybinta caasimadda hargeysa totally way ka duwan tahay systemkii hore loo cabayey. waxaanu samaynaa degmooyinka hargeysa degmo kasta oo ka mid ah sida tusaale ahaan degmada maxamuud haybe adiba ka soo hadlayso iskuulka la yidhaha almaktuum iskuul ee ku yaala manhal dabadiisa ayaa taangi weyn laga samaynayaa. taangigaasa biyaha lagu soo bamgaranaya barkada shiinaha lagaga soo tuurayaa. biyo barashar leh ayaa xaafadihii hoos lagu soo dadejinayaa. axmed dhagax sidoo kale koobuur sidoo kale gacan libax sidoo kale xaafad walba waxaan dooranay buurta ugu dheer ama meesha ugu wanaagsan leefal ahaanba taangi weyn laga samaynayaa. mashruucaasoo iyagana inaga caawinayso oo labadan sanduuqa horumarinta somaliland iyo EU aan ahayn KFW bangiga horumarinta qabsan Jarmalku isagoo inaga caawinayo distribution systemka oo imika design-ka iyo BOQ-giisa iyo wax walba imika gabagabo ku jiraan. waa dad waraysato meeshaan kaaga sheekeynay iskuulka almaktuum iskuul la yidhaahdo survey dhammaystiran baan ku samaynay ciida nooceeda la ogaaday taangi intuu loo ekaanayo biyuhu qaadi karaa intay leeg tahay. marka insha allah ilaah waxaan ka rajeynaa mashruuca phase-ka labaad ee ah distribution systemka oo imika hawshiisu taagan tahay final stage-kii in yacnihii tartankii la bixiya qadaraaskii la bixiya ciddii dhisi lahayd baraagaha iyo dhuumaha. marka hawshaasi dhacdo systemkii markii hore biyaha lagu cabi jiray cabashada badan ka taagneyd waa laga bixi doonaa waayo sababtoo ahayd Chinese-ku uguma talagelin magaalada Calton la geliyo uguma talagelin suuqan dhexe weyn ee aad ka weynaaday inuu sidan ahaado. waxa lagu talagalay magaalo kooban oo caasimad ahayn oo dad yar oo kooban ku nool yihiin in biyaha lagu talagalay laakiin marka caasimad bay noqotay waa sababtaan uga guurnay systemkii hore Chinese-ka oo ugu guurnay system cusub oo ah degmo kastoo hargeysa ku taala inuu line toosa oo aan la daloolin oo biyo aan laga qaadin toosi u tago kadibna xaafadii biyo barashar la hesho biyihii dib lagu soo celiyo. oo imika tusaalahan dad calaamadaha deganta waad garan kartaa almaktuum iskuul aroorta haddaad tood fuusho oo buurta dusheeda fuusho xaafadda gabigeedu ama degmada gabigeedu oo hoos bay ka xigaysaa waa sababtaan u dooranay meesha. insha allah ilaahay waxaan ku rajeynayaa ilaahay nagu guuleeyo waad mahadsantahay. hay su'aal kale oo ku jirta hay hello hello السلام عليكم. calaykum salaam walaal magacaaga adoo ku bilaabaya maxaa su-aalaad weydiinaysaa maareeyaa. magacaygu waa Iftaax Naasir haye cabdi iftaax. oo ka soo hadlayaa degmada Maxamed Mooge. maxamed mooge. haye maxaa su-aalaad qabtaa. waxaan su-aal qabaa markii degmada Maxamed Mooge ay cusbay 2000 kilometers biyaha waan cabi jirtay meel oo maraya. haye. waa maxay sababta keentay in waqti oo maraya 2016 kana ay biyo la'aan waa ay saxaafadii la degmadii. waa sax waa su-aal fiican waad mahadsan tahay. 2006 ama wixii ka horreeyey waa runta meelaha ka mid a degmada yacnihii maxamed mooge way gaari jireen biyuhu. waxaan isweydiinaynaa xilligaa biyaha hargeysa soo gaaray ee laga soo saaray geedeeble imise ahaayeen maanta imise yihiin. xilligaa markay ugu badnaayeen waxaa lagu qiyaasaa 4,000 mitir kuubik ilaa 5,000 mitir kuubik in la soo saari jiray maalintii. maantana waxaa la soo saaraa 9,000 mitir kuubik. iyadoo biyihii geedeeble soo kordhiyey ayay haddana degmadii halkii ay gaari jireen biyuhu ka soo gaabteen. maxay sababtu tahay waxaad aad tusaale yaroo kooban kugu filan suuqa hoose caasimadda hargeysa oo taqaana intuu leeyahay inta fooqe ka dhisantay inta hoteele ku taala inta xamaame ku taala inta restaurant ku taala
dhammaan fooqyada iyo restaurantada iyo hodheeladaasi waxay isticmaalaan biyihii xaafadda u tallaabi jiray waa sababtaan lahaa farsamadan iminka insha Allah mustaqbalka aan u guurnay waxaanu ka guuraynaa in biyihii xaafadda lagu talagalay meel kale isticmaasho marka dadkii ku noolaa ama suuqii dhexe ayaa biyo fara badan isticmaalay sababtaa dartood baa soo koobtay biyihii ka tallaabiyay dooxa marka insha Allah dee waynu ognahay way bilaadahay xaafadaasi ama degmadaasiba Maxamed Mooge insha Allah waxaan rajeynayaa taangaa weyn ka sameynaa sharxay imika su'aashii ka horeysay marka la dhiso insha Allah hawsheedu dhamaantood waad mahadsantahay waxaan ka codsanayaa qof kasta oo maareeyaha su'aal soo weydiinaya maadaama magaalada Hargeysa ay biyo laadahay isla markaana haatan lagu guda jiro xalkii loo raadinayo biyaha bal qof kasta uu isku dayo in su'aal ku saabsan mashruucan biyo ballaarinta uu faahfaahin dheeraad ah uu ka sii weydiiyo maadaama magaalada Hargeysa maanta la isla wada qarsaynay biyo laad isla markaana imka lagu guda jiro si loo balaarin lahaa waxaan ka codsanayaa mar kale in lagu koobnaado mashruucan biyo ballaarinta qof kasta soo faahfaahin dheeraad ah uu uga helo xilliga soo gaarayaan wuxuu ku saabsan yahay ujeedada mar walba laga leeyahay هاي محل سؤالك عليكم السلام ورحمة الله عمان كون مغلا يا مغا عاقا يا هلك ديقلا سؤال ليسو waxaan ka hadlayaa xaafadda New Hargeysa magacaygu waa Faadma Cabdilaahi Aadan Faadma maxaa su'aal qabtaa waxaan doonayaa biyaha waxa loogu ballaarinayay baan doonayaa gobolada Soomaaliya qaar baan wakaalada biyaha ka shaqeyn dadka hareerunta waxa weeye biyaha khalaariya kuwa macaan aynu laba kala saarno ma waxaad ka hadlaysaa Faadma magaalada Hargeysa mise waxaad ka hadlaysaa gobolada kale gobolada Soomaaliya wakaalada biyood bay leeyihiin maareeyahana waa wakaalada biyaha ee magaalada Hargeysa kaliya to ayuu hayaa wixii su'aalaha ku saabsan gudaha magaalada Hargeysa ee wakaalada biyaha ayay su'aashaadu furantaad weydiin kartaa aad bad mahadsan tahay Faaduma waxay ka hadlaysaa gobolada dalka oo dhan maareeyahu Ibrahim Siyaad waa magaalada Hargeysa gudaheeda balse waxa la soo weydiin doonaa maareeyaasha kale ee goboladaasi kale dalka ayaguna wakaaladooda biyaha maamula balse wixii su'aalaha magaalada Hargeysa ku saabsan iyo mashruuca mar walba qofkii su'aashaasi qaba oo soo dhaweynaya bal mar kale maareeyaha aanu si faa'iideysto intaan dadku su'aalaha aanay soo badanin maraya mashruucan biyo ballaarintu kulli waa hawl badan oo adag oo dhinacyo badan buu taabanaya dhinacii dhaqaalaha hadday noqoto iyo dhinacii hadday noqoto shaqaaleysiintaba faa'iideynta leeg baslada way ka helayaan bulshada magaaladan ku dhaqan Hargeysa wal faa'iido horta ugu weyn ay ka helayaan waa biyaha mustaqbalka markuu mashruuca maadin soo gaaraya oo biyo aad u farabadan oo imka insha Allah haduu Ilaahay noo dhameeyo san rajada tahay ku dhamaado imka 9 milyan oo litir baa maalintii soo gaaray Hargeysa waxaan rajaynaa markuu mashruucu dhamaado 20,000 ilaa 40,000 milyan oo litir inay soo gaaraan hadii si kale loo dhigan 9,000 mitir kuubik mashruucu markuu dhamaado 40,000 mitir kuubik inay soo gaaraan taas waxa gad faa'iidada ugu weyn aynu rajaynaa mashruuca inuu noo horseedo qodobka labaad shaqa abuur fadlan buu sameeyay mashruucu intaas oo qof baa ka shaqeeya reer Soomaaliland hadda daruurtii tagto meelaha mashaariicdu ka socdaan ee ama horahaad leh ha noqoto ama geedibal ha noqoto ama Hargeysa agteeda ha noqoto dad far badan oo aad u far badan oo reer Soomaaliland ayaa ka shaqeeya tiro kooban baa jirto oo ka shaqeyso engineer-raho qualified oo aan reer Soomaaliland ahayn ama ha noqdaan wadamada reer galbeedka ka soo jeedaan ama dalalka kale aan jaarkana ka soo jeedaan qodobka labaadna waa shaqa abuurka waxaad garan kartaa beebka markii la soo reeyay tusaale ahaan 500 container wax ku dhidhoba oo beeba laga soo raray China iyo Talyaaniga gawaadidka quraatay ka shaqo helay berbere ilaa Hargeysa soo daabulay 500 gaari ayaa shaqo ka helay oo daabulkiisa ka soo qayb qaatay shaqo fara badan oo ah ama shaqaale hoosaad ha noqoto ama shaqaale sare ha noqoto ama deegaan ha noqoto shaqo abuur fara badan buu sameeyay marka hadda waa mashruuc weyn faa'iidadiisu soo badan tahay ama xagga shaqo abuur noqon maxaa qorshe waa marka bal si loo qaybin lahaa biyaha caasimada wala qorshaha wuxuu yahay mashruuc laba qaybood buu qaybsamaa qaybta koowaad phase-ka koowaad waa mashruuca imika EU iyo SDF iska kaashadeen phase-kiisa koowaad wuxuu yahay in kaam cusub oo geedel laga dhiso pipeline-ka la soo dhigo horahaad ceelashadii lagu soo xiro biyihiisa Hargeysa ku soo gaaraan phase-ka labaadna wuxuu yahay in biyaha Hargeysa soo gaaray degmooyinka Hargeysa loo qaybiyo way Hargeysa waxaan la soconaa waxay ku taala goob buuraleeya way kala sareysaa xaafaduhu xaafad meel goday ku yaalaan xaafad meel sare ku yaalaan si biyo barasho la xaafad walba hesho waxaan ku talagalay waxa la sameeyay design iyo biyo ku yibaan gacanta ku hayna shirkad Sharmal hay wado oo isaga maalgelisay sanduuqa horumarinta Soomaaliland
kaasina wuxuu yahay in xaafadooda oo Hargeysa ku taala oo tusaale ahaan afarta degme ee Hargeysa ee Maxamuud Haybe iyo Axmed Dhagax iyo Gacan Libaax iyo Koodbuur mid walba taangi weyn oo gaar ay u leeyihiin loo sameeyo si ay bari pressure loo helaan markii nimaadno wakaalada biyaha Hargeysa sidee bay u hanan kartaa inuu nidaamkan sii shaqeeyo marka uu mashruucan dhamaado walaal waa su'aal muhiim ah waxaan ognahay mashruucaas markuu dhamaado oo mashruuc xaddiga biyaha aad u kordhaya nimanka waxaan ku wadnaa reform ama inaanu awoodii wakaalada lafteeda xagga infrastructure ku in la dhiso ama wakaalada lafteeda la dhiso waxaad ogtahay in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland bari tolo uu magacaabay guddi board of directors guddigaas oo ka kooban acyaantii ama dadkii indhergaadka ahaa ganacsatada lahaa culimo lahaa dumarka lahaa dad aad u wanaagsan oo waaweyn ku jiraan reer Hargeysa waxay ka mid tahay in capacity wakaalada la dhiso si ay wakaalada u hanato waxaan isku dayaynaa insha Allah waxaan wadnaa inaan shaqaalihii aqoon farbadan kordhino shaqaalaha ilaa demaarayaha noqoto agaasimayaal ha noqoto sectionska ku jooga ha noqotay train farbadan baan dibadda u qaadnay iminka tusaale ahaan qaar baan UK tagay qaar baan South Africa u qaadnay Namibia qaar tagay Kenya u geynay Uganda tagay waxaas oo waxaan u wadnaa si mashruuca inta leeg markuu dhamaado si ay u hantaan oo aan mashruuciiday yani cid naga dhicin mar hadii la inoo caawiyo dadka deeq bixiyaashu caawiyeen aynu si fiican u haano in wakaalada lafteeda awoodeeda dhaqaale ahaan iyo maamul ahaanba la dhiso insha Allah waxaan ka rajaynayaa ilaahayna in hawshan ugu guulay waxaan isleenahay awood ahaan wakaalada biyaha Hargeysa way hanan kartaa maamul ahaan iyo aqoon ahaan iyo farsamo ahaanba in mashruucaas markuu dhamaado biyaha inta laag rangarayso khadka telefoonka halo assalaamu calaykum qofkaas nasiib uu heli waayay inuu laga qaato barnaamijka waxaynu imika warqabnaa in magaalada Hargeysa inta biyaha hesha habeenba xaafad soo dhacdo oo habeenba xaafad loo sii daayo markuu mashruucan dhamaado ma laga gudbaya taas oo qofku si joogta biyo mu helaya walaal kulli Hargeysa waxaan isleeyahay feeskan koobaad si fiican baa looga gudbayaa waxaan heli doonaa biyo joogta haddana waxaan u baahanahay mar kasta in biyihii mashaariic cusub oo kale la sameeyo waxaan imika mustaqbalkeedu yahay in dhaam weyn oo Butuj dhaam la yiraahdo la xiro mustaqbalka si biyo aad u farabadan Hargeysa soo galaan way Hargeysna way koraysaa mar kasta koritaanka qof kasta oo caaw ku dhasho ilmaha biyihiisa waan lagu soo kordhiyaa marka insha Allah feeskan koobaad waan ka bixi doonaa qaybinta biyaha la qaybinayo xilliga adag islaamu soo jeedeen hooyooyin farabadan soo jeedaan xilli adag inay biyaha dhaansadaan insha Allah laakiin waxaan u baahanahay mar kasta inaan halka laga hadhina la oran mashruuc baa inoo dhamaaday in mar kasta halka laga sii wado وأتمنى إن شاء الله قرشة هذا يمكن قاعد كهنا ومشروع كدب أنا راح نحن مستقبل كنا نحن قدام مشروع عمر كنا معه. أي خمسة تلفون. هلا السلام عليكم. ولا لما قاعد أدوك بلاويات كذا جلسوا هلا يسوع. هاي سعيد محل سؤال ودين سامريا. هاي. واي هاي. walaalood mahadsan tahay inkastoo barnaamijkani uu ku koobnaayo quraata mashruuc biyo bilaarinta caasimadda Hargeysa EU-da iyo SDF iska kaashadeen laakiin mashruucaasna wuxuu kamid yahay mashaariicda Hargeysa ay sugayso waanu la socnaa mashruuca ceelashiisa waa la qoday meesha xunba weyn la raaba laga qoday waxay noo harsanaa feestugiisa oo ah pipeline-kii iyo baraagihii insha Allah weegan aynu ku jirnay laftiisa waxa hawshaas mar baan hawsha yani cidii maalgelinaysa ee hadda qbiixay Khalifa Foundation ahay timid ka insha Allah isaga waxaan rajaynayaa inuu isaguna si degdeg ah inuu bilaabmo oo mahadsantahay halo assalaamu calaykum walaal adoo magaca ku bilaabaya iyo halka joogto maxaad su'aalaad maaraya weydiinaysaa assalaamu calaykum halo assalaamu calaykum waan ku maqlayaa waan si fiican walaal waxaan weydiinayaa waxa ka soo hadlay magacayga Ibrahim Jaamac waxa ka soo hadlaya xaafadda Maxamed Haybe haye Ibrahim maxaad su'aalaad qabtaa wax su'aal waxa wadaa iyo mashruucan biyo gelinta dawladda maqlaynaa marka sanawaad dhowr sanadood buu ahaa haye marka waxaan ku sheegayaa waxaan sidii baabuurka oo kale wax iska weeyay dhulkeeda dhinaca ka buuxdo baabuurka ka buuxdo wala soo saaray ilaa tiyaabo iyo sheer baadeen ku malaynaa lagu qoradeeda Maxamed Haybiya gadagani haye marka bal waxaan weydiinaa boorta waxaan wax xaqiiqad u leeyahay boorta soo baabuurka soo ilaahay toban sanadood soo raafan boqol sanadood wala soo saaray aan balamidi waa si fiican su'aal fiican walaal walaal mahadsantahay Ibrahim maaha mashruuc yani laga sheekeeyo oo mashruuc xaqiiqo oo socda waxaan jeclahay klibkii markuu mashruuc bilaabay nala daawatay waxaan jeclaan lahaa hadii chance aysan aan kugu casuuno mashruuc meel uu ka socdo mashruuca haddaad aragto inta iskaafeetar iyo inta cagaf ka shaqeynaysa inta buuraha la jafayo ma tirahdeen yani sidaas
مشروع هو مشروع انفراستراكشر وكدوان يحيى مشاريع نقانو دhan waa mashruuc biyood hadaad waraysato waqtigii Chinese-ku mashruuca wadeen intuu qaatay hawshu soo socotay meelaha qaar kood baa intaas oo afar iskaafeetir inta la soo keeno check-up lagu wada xidho ay kulligood maalintii jiraan wax yar oo kooban buurta dusheeda oo kale waa mashruuc aad u adag maaha mashruuc la leeyahay waa hadalun mashruuca componentskiisa ama waxyaalo ku koobnaa badidood way dhamaadeen laakiin insha Allah waxaan rajeenaa waxaan kugu soo casuumi lahaa chance hayso inaad raacdo maalmood nala soo eegto hawshaas waad mahadsantahay السلام عليكم والمقعة قاضوك بلابي يانكت كلا سؤال ليسو محاد سيئة سؤال ويدين ساماريا والله العود كاقا السلام يرقاد هلو والله السقابي تيفيقا تليفون كو كلها تيقا لسعو وانكو مغلى ياسيف يعني كوري يرقى وكاك الله عود كاك هذا ما قصو سؤال شابد ويدين يسو ستو سولي ومر فهميو أمر عليها قفو كحيقة أنا suurtageli wada qofkaasi inuu si fiican inoo maqlo su'aalaha ugu badan ee maaliyeed la weydiinayo wax weeye goorma dadku way degdegsanayaan muddada uu mashruucan soconayo si hadal inta badan su'aalahooda ku badan goorma isleedaadu si toos ah loo daafuraya marka adigu walaalta dhowr jeer horena waan ka jawaabay dadku de samirka ayaa horta ugu muhiimsan dawaan u garaabayaa qof biyaalo magaalo joogo muddo dhan la leeyahay mashruuc baa socda waa dawda inuu caawdo laakiin waxa qofku inuu ku darsado ay tahay shacabka reer Hargeysa ay ku darsadaan in mashruuc uu ka duwan yahay mashaariicda ay naqaano ama hadii ay noqoto meel la dhisayo aad buu uga duwan yahay waa mashruuc yacni aad u adag sameyntiisu baabiyo waa mustaqbal mashruuc la doonayo boqolka sano soo socda beebkaas inuu Hargeysa anfaco waa mashruuc la ilaalinayo pressure-kiisa iyo sida loo dhigayo level-kiisa la ilaalinayo marka insha Allah rajadeedu waxay tahay ama qorshuhu yahay in 2016 dabayaaqadiisa December January in mashruucaas dhamaado hadii aan wax isbeddelaa jirin laakiin qorshahaygu waa saas u yahay هلو هلو والمقعة صدحان يالك دقلا سؤال اللي سمحة سؤالات ماريا ويدينيسا معي هو محمد يوسف ماريا واحد دوني هنا ويديو مشروعا يمكن بلارين مقالة حديثة اي سوشا ويديني وقتين مشروع هورت اليوروبي كارتيه تكتير يباكو بحيوية سام قاهي نو ورقعتان هاي يمكن بيها واحد الشيء إن مشروعا ولمانيا وضوط كل يتطبيق تونكا هاي marka maxaa su'aalaad qabtaad weydiinaysaa Maria لأنه waxa weeye mashruuc xilliga loogu talagalay waxa xaqiiqo inuu dhaafayo ama registration uu baahanayo hay marka maxaa banaana intii la qorsheeyay dib uga dhici karaa mise on time buu ku imanaya mashruuc aad buu maasanta dawladda waxaan jecelahay adaaba yani jawaabtiina siiyay mashruucaas qorshihiisu wuxuu yahay inuu January xariga laga jaro ilaahay bay waxaan nahay bilaadan qorshe la inooga baahan yahay laakiin talada Allah inoo haya annaga mashruucaas wuxuu 2017 January inuu dhamaado ilaahay qorshihiisuna meeshiisa u yaala marka insha Allah waxaan leenahay rajada in wanaagsan xilliga aan ku talagalay inuu mashruucaas dhamaanayo waa su'aasha ugu dambeysay maadaama gunti iyo gabagabadii barnaamijka aan ku sii jirno halo السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله magacaaga adoo ku bilaabaya iyo halka degan tahay maxaad Maria su'aal weydiinaysaa وعبد الله عبد الله هيا عبدي halkee degan tahay waxaan deganahay waraab salaam haye barnaamijku ugu yara dhaafay soo ma maareeyaha su'aal weydiinaya maareeyaha wakaalada biyaha ayaa fadhiya maxaad su'aalaad weydiinaysaa ee ku saabsan mashruuca biyo ballaarinta wakaalada biyaha mashruucyo badan baan ku maqalaa mashruucyadaasi talow daniyo wax aan ku haynaana ma jirto aan ka yara dhexgalo Cabdullaahi ya waro mashruucan ku hadlaynaa waa kii biyo ballaarinta maxaad su'aalo mashruuca biyo ballaarinta ka qabtaa ha waan ka qabaa marka waa laba wajiyo laba face ana face ka weynaniyo waana maqalaa ku dambeeyo face kaasi ka koobaad su'aashaas horena Maariyo uga jawaabay adigoo raaliya mar labaadna kugu celin doona
walaal mashruucan aynu barnaamijka aynu caawa u fadhinay wuxuu ku salaysnaa mashruuca biyo balaarinta Hargeysa geedeeb la hore hadlay laakiin mashruucaasi xunba weyn mashruuc jiro ahaa muddo socday fayskiisii koowaad waa dhamaado ceelashaha fayskii labaadna insha Allah waxaan rajeenaa inuu bilaabo mahadsantahay waqtiga gaaban awgii waxaan aad uga raali gelinayaa guud ahaan intii isku dayday inay maarayaha su'aal weydiisay waqtigu saamixi waayay nagala qayb qaataan ama se khadka telefoonka uu mashquul ka noqday maadaama dadka soo garaacaya barnaamijka ay doonayaan su'aalaha inay weydiiyaan maarayaha aad u tira badnaayeen markalena waxaanu si aad ugu mahadnaqayaa maarayaha wakaalada biyaha ee Hargeysa Ibrahim Siyaad Yooni sidoo waqtigiisa qaaliga uu noogu horay inuu nagala qayb qaato barnaamijkan waxaana barnaamijkan soo diyaariyay xafiiska xiriirka mashaariicda ee sanduuqa horumarinta ee Somaliland ee wasaaradda qorsheynta qaranka waxaana aan ku soo qaadanaynay mashruuca biyo balaarinta ee magaalada Hargeysa oo ay kaashanayaan SDF iyo waliba midowga Yurub su'aasha gabagabada aan maarayaan siinaya waxa way guntiga gabagabada adoo minute ku soo koobiya maaray maxad guud ahaan bulshooyinka Soomaaliland ka tagaysa bulshooyinka caasimada Hargeysa waxaan ku soo jeedinayaa horta waxaan uga mahadnaqayaa samirka ay u yeesheen mashaariicda socda waxa ka muuqatay su'aalo far badan time-ka waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu ilaahay mashruuca inagu guuleeyo dadweynaha caasimada ku nool waxaan u soo jeedinayaa in badan baynu Hargeysa bilayd sababtii ay u bilaydna waan soo sheegnay imika meel wanaagsan aynu marinaa ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu ilaahay hawsha inagu guuleeyo dadweynahana waxaan ka codsanaa hawsha ducadeeda iyo inay xagga rajada wanaageeda in raaciyaan qowlka wanaagsan dad islaameen nahay waxaan ognahay qowlka wanaagsan wanaagiisu yahay wax walba lama sharaysto xagga wanaaga laga eegaa mashruucu si fiican buu u socdaa هذه الشيء والله بوضع وضع تيفيات وكذا وطن إلهي وحنا كبرين إلهي نقول لي إذا كانوا عندك رجعنا إن المشهد الدعاء قف كستابة قف كي ترى يتصالح يعني ونسول وين حفيز كوفرين هاي هذا إنجنير انتهاي هذا سكرات هاي قف كي أن تلاهين وحنا كعد صنع إنه الدعاء نرجع بشوفه هذا ودنا هالسنتين guud ahaan daltiis waxay noogu dhamaaday waraysigaas aanu la yeelanay maariyaha wakaalada biyaha Hargeysa bahda oo Cable TV waxa barnaamijka la qayb qaadanayay Maxamed Axmed Xuseen gaabana dhinaca kamaradaha iyo telefoonka weynoo qaabilsanaa Cabdiraxmaan Axmed Gaashaan leh oo isaguna guud ahaan ba live ka sidii toos ah u taawanaysan hagayay iyo waliba khadarsheen oo isaguna dhinaca baahinta inoo fadhiyay oo kuraasa waxaan soo kale aad ugu mahadnaqayaa deeq oo isaguna ka socda xafiiska xiriirka mashaariicda ee sanduuqa horumarinta Soomaaliland isaguna barnaamijkani qayb weyn naga qayb qaatay maarayaha soo si weyn ugu mahadnaqayo dhamaantood inta barnaamijka xiga dib u kulmi doono waxaan taga tagay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh